Bismillahirrahmanirrahiim. Waa kii Soomaali mathematics waxaan dhiganaa trigonometry function form 4 chapter 1 lesson 1 baan dhiganaa. Marka afar bay ka kooban yihiin, afartan adiga arkaya waa second first third. Marka intan su'aalahan ayaan ka shaqeynayaa cutubkii koobaad ee form 4. Su'aalahan baan ka shaqeynayaa dhowrka xaba u fiirsada. Waa kii Soomaali mathematics oo nile like saara si fiican u fiirsada. Su'aashii koobaad baan ka shaqeynayaa. Su'aashii koobaad waxaa la siiyay 200 oo degree. Waxaan dhahnaa markaa 200 oo degree equal 180kii caadiga ah oo loo geeyay 20. Marka 180 loo geeyay 20 waa 200. Way noo keentay marka waxay ku istaagtay qaybtii saddexaad. Marka waxaan dhahnaa waxay 200 oo degree waxay nala mid tahay tirda quadratic bay nala mid tahay. qaybtii saddexaad ayay ku istaagtay 180 waa 2 marka 20 markay gashay. Su'aashii labaad baan ka shaqeynayaa. Su'aashii labaad waxaa la siiyay 1125 degree. 1125 degree waxaan dhahnaa equal 3 oo lagu dhuftay 360 baan dhahnaa degree oo loo geeyay 45. Marka intaas markaan isu geeyno intanay noo soo baxaysaa. Marka 125 degree waxay nala mid tahay first degree. Marka waxay ku soo istaagaysaa kii koowaad oo 45 taasi ku soo istaagaysaa. Waa kii Soomaali. Su'aashii saddexaad ayaan ka shaqeynayaa. Su'aashii saddexaad waxaan leeyahay -900 oo degree. -900 oo degree waxaan dhahnaa -900 oo degree equal baan leenahay equal 2 times -360 minus plus baan dhahnaa -180. marka la isku tagaan inta noqon. Marka waxaan dhahnaa -900 waxay noola mid tahay is a quadratic angle baan dhahnaa. Isaga quadratic angle ma loo isticmaalnaa minus. Su'aashii afraad baan ka shaqeynayaa. Su'aashii afraad ee dhida waxaa la siiyay 240 degree. Waxaan dhahnaa 240 degree waxay noola mid tahay equal 180 degree oo loo geeyay 60. Marka waxaan dhahnaa 240 degree waxaa is a tirda quadratic. had iyo jeer waxaa la eegayaa marka aad ka bilowdid xagga ugu horeysa meesha ka bilaabato halkay ku dhamaataad eegaysa. had iyo jeer waxay ku dhamaatay adiga arkay. Su'aashii shanaad baan ka shaqeynayaa ee ida ahayd 330 degree baan la siiyay. 330 degree waxaan dhahnaa equal 180 oo loo geeyay 150. marka waxaan dhahnaa 330 degree waxay nala mid tahay is a 40 quadratic. had iyo jeer waxaad eegaysaa meeshii kaaga dhamaad. hadda kii afraad bay naga dhamaad. halkii kaaga istaagto unbaa loogu magac darayaa 40 ba naga istaagtay. waa kii Soomaali mathematics oo nile haddii aad fahamtay like saar siina sheegaraya xisaabtan iyo xisaab kalaba halkanaad. Su'aashii lixaad ayaan ka shaqeynayaa ee efta ahayd. waxaa leeyahay 620 degree. 620 degree waxaan dhahnaa waxay nala mid tahay hal lagu dhuftay 360 degree oo loo geeyay 260 degree. marka waxaan leenahay 620 degree is a tirda quadratic baan dhahnaa. waad fahantaan u maleynayaa. waa kii Soomaali mathematics oo. Su'aashii toddobaad ayaan ka shaqeynayaa ee jida ahayd. waxaan la siiyay minus 1080 degree. waxaan dhahnaa minus 1080 degree equal 2 times minus 360. waxaan dhahnaa plus minus 360 baan dhahnaa. kabacdi waxaan dhahnaa markaa minus 1080 degree is a quadratic angle baan dhahnaa. is a quadratic angle ayaa loo isticmaalaa markastoo labada isku mid ka noqdaan. Su'aashii sideed baan ka shaqeynayaa minus 350 baan leeyahay. waxaan dhahnaa minus 350 waxay la mid tahay 1 aan ku dhafanay 180 plus minus 150. waxaan dhahnaa minus 350 is a quadratic angle. Su'aashii sagaalaad baan ka shaqeynayaa minus 480 degree. waxaan dhahnaa minus 480 degree equal baan leenahay minus 360 degree plus minus 120 degree. kabacdi waxaan dhahnaa minus 480 degree is a quadratic angle baan dhahnaa. is a quadratic angle. waad fahantaan u maleynayaa. waa kii Soomaali mathematics oo kule haddii aad fahanteen like saar xisaabtan iyo xisaabyo kaleba halkan ayaad ka helaysaa. Su'aashii tobanaad baan ka shaqeynayaa. su'aashii tobanaad waxaa la siiyay 666 baan la siiyay. 660 waxaan dhahnaa 666 waxay noola mid tahay hal lagu dhuftay 360 oo loo geeyay 306 baan dhahnaa.
kabacdi waxaan dhahnaa 666 ise 40 quadratic baan dhahnaa 40 quadratic waad fahantaan u malaynaya waa kii Soomaali mathematics oo la hadiyo jeer like saal sheeg su-aashii u dambeysaan ka shaqeynayaa ee 11aad waxaan layidhi 550 degree baan la siiyay waxaan dhahnaa 550 degree wuxuu la mid yahay hal lagu dhiftay 360 degree oo loo geeyay 190 degree waxaan dhahnaa markaas 550 degree ise 30 quadratic halkii saddexaad ay ku istaagtay waa kii Soomaali mathematics oo la hadii aad u baahan tahay xisaabtan iyo xisaabyo kale form 1 form 2 form 3 iyo form 4 ba halkan aad ka helaysaa YouTube-ka kii Soomaali mathematics